ciidan bandow ku jira askarta dee way tiro badan tahay iskoosyada iyo xaafaduna waa tiro badan yihiin marka askari iyo muxuu dad shacab oo meel joogay oo isugu yimi askariguna muxuu ahaa sidii hadda riboorka looga qoray qori xabadi ku jirto watay marka xabadii uu kor u riday ma aqantos inuu ridayo xabadii qofna way ku dhintay qofna way dhaawacday qof kalena dhaawacii buu dhintay taasina waa u dirnay aad iyo aad waa xumaanay waana fal annakiina la yiri dadka badbaadiya in gacanteena dad ku dhinto waa wax aad iyo aad looga murugooda taliya xajaar askarigan gabadha iyo wiilka dilay hadda xaguu joogaa waa xiran yahay gacanta dawladda ku jira maxaa laga yeelay arrinkiisa dalku sharci buu leeyahay maxkamadda la saaraya marka ma la og yahay inuu kama u dilay iyo inuu kas u dilo xabadda toos ugu riday muxuu ahaa kama hor dhici karo baaristaa socota reerkii dhibkan soo gaaray kasako inaad idaacadaha ka sheegtaan ma u tagteen oo ma u sheegteen oo xanuunkii ma la qaybsateen si fiican iyadoon booliiska cidi ka maqnayn oo gobernatooruhu hogaaminayo oo booliiska markii hore ka horreeyey markii dambena gobernatooraha iyo muxuu ahaa iyo waa loo tegey saakana waa loo tegey xalayna waa loo tegey adduunkoo dhan waddamo badan baa bandow ku soo rogay magaalooyinkooda iyadoo korona laga hortegayo markii bandowgan aad soo rogayseen askarta inay fuliso aad ugu tala gasheen ma u sheegteen shuruucda bandowga laga rabo inaan dadka la qasbin xabad lagu ridin corona laga cararayay inuusan dhib kale imanin ma u sheegteen waajibaadka askarigay ka mid tahay in tababarkii hore lasoo siiyaaba ku filan marka bandow la keenana waa u sheegay waana keligay maaha ciidanka booliiska oo dhan iyo saraakiisha waa loo sheegay haddaad dib u dhegaysatana markii bandowga habeenkii lasoo saarayey instructionka la siinayey iyo waxaa la faray baa lagu wada caddeeyey taliya xajaar dilalkan dilalka horaa ka horreeyey oo weliba gaar ahaan dhallinyarada bajaajleyda ee baabuurtan mootooyinka ee saddex lugoodlaha magaalada ku wado waan maqalnaa askarigii dilka geystay waa la soo qabtoo waa la xidhay laakiin meel maxkamad lagu saaray iyo wax baaritaankaas uu ku dambeeyey iyo in askarigaa loo dilay dadkuu dilay ma maqalno ma xaqiijinaysaa dadka reer muqdisho askarigan labada qof xalay dilay inuu cadaaladda hortegayo askarigii waa xiran yahan ku yidhi catoosh waa kuugu celinayaa gacanta dawladduuna ku jiraa baaristiina waa socotaa wax walba oo dawlad baanu nahay dawladduna procedure bay leedahay wax kasta hadday tacliin tahay hadday caafimaad tahay hadday boliis tahay procedure buu leeyahay waxa la iska hindisayo ama laga tegi karayo maaha marka gacanta dawladdu ku jira askariga maxkamadna waa la geenaya insha allah su-aasha ugu dambayso ujeeddada bandowga u soo rogteen waxay ahayd in cudurka corona dadka uusan ku dhicin oon loo dhimanin laakiin dadkii rasaastiinay u dhiman hayaan in wixii aad ka hortegayseen wax la mid ah oo dhimasho ahayd aad idinku sababtaan oo gacantiina lagu dhinto ciidanku habeen iyo maalin u soo jeedaa in bandow muxuu ahaa bandowgaasi salka ku hayo muxuu ahaa in cudurkaa lala diriro oo macnaheedu yahay hal daawuu leeyahay cudurkani hal daawadiisuna waxa waaye inaan laysu iman oo dadku kala fogaadaan dhakhaatiirtu saasay daawada ugu fiican yihiin annaguna dadka bandow waxaan ugu soo ridnay inay kala fogaadaan xitaa dadka laamiga maraya caadiga muxuu ahaa hal iyo laba u socday supermarketka iyo dhakhtarka iyo wax soo gadanaya ama farmashiyaha u socda caadiga u socon karaa intaasan kugu soo sheegaya in muxugtahay dadaalka aanu wadno waxaana jeclaan lahayn dhacdo hal mar dhacday oo wax walba adduunka waa ka dhacaan in la dhihin gacmihiina lagu dhammaaday